Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo safar shaqo maanta ku yimid magaalada Addis Ababa ayaa kulan miradhal la qaatay dhigiisa waddanka Itoobiya Abiy Ahmed. Kulanka labada mas'uul ayaa diiradda lagu saaray adkeynta xiriirka labada dowladood iyo horumarinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Mas'uuliyiinta ayaa isla qaatay in xaaladda caabuqa coronavirus iyo sida labada dal ay si wada jir ah isaga kaashan karaan iyadoo la eegayo dhinacyada la isaga kaashan karo si looga hortago in cudurkaasi ama xanuunkaasi uu ku faafo labada dal. Ra'iisul Wasaare Khayre iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa sidoo kale ka wada hadlay xasiloonida gobolka Geeska Afrika iyo kaalinta labada dowladood ee sida wada jirka uga qayb qaadan karaan. Maanta waxaa booqasho rasmi ah waddanka Itoobiya magaalada Addis Ababa joogay Ra'iisul Wasaare Khayre wuxuuna la kulmay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Mudane Dr. Abiy Ahmed. Labada Ra'iisul Wasaare waxay ka sheekaysteen guud ahaan iskaashiga labada waddan u dhaxeeya. Soomaaliya waa dal daris ah, jaar ah, shacab wada jir ah, aad u wada wadaaga oo taariikh badan u soo dhaxeeyay, mustaqbal weyn oo wax wada qabsina u dhaxeeyaan. Madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Abiyna booqashadii Muqdisho markuu kadib xiriirka labada waddan aad iyo aad baa loo sii xoojiyay, kor baa loo qaaday, si istaraatiiji ah ayaa loo wada shaqeynaya, gaar ahaan ammaanka guud ahaan Geeska Afrika iyo Soomaaliyaba sidii iskaashiga loo sii xoojin lahaa bay ka wada tashadeen, iyo arrimaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarintana iskaashiga sidii loo xoojin lahaa bay ka wada tashadeen. Ra'iisul Wasaaruhuna wuxuu soo tusay mashaariic kala duwan dal ahaan aan wadno, gaar ahaan magaalada Addis Ababa laga wado, iyo soo tusay run ahaantii labada dhinac sidii iskaashiga loo xoojin lahaa ayay ka wada hadleen, iyo ammaanka iyo nabadgelyada iskaashiga gobolka Geeska Afrika oo dhanba. taasi waxaa sii dheer cudurkan dhawaan dilaacay oo adduunka dhibaato ku ah, dadaalka Itoobiya laga wado iyo dalka Soomaaliya wado fikradiis dhaafsadeen in cudurkan la dagaalankiisa si wada jira Geeska Afrika oo dhan si iskaashi wada buuxa sidii looga sii shaqeyn lahaa fikradiis way dirsadeen. taasna la sii xoojin doono dhammaan madaxweynayaasha ama hogaamiyaasha dalka Geeska Afrika oo dhan la gaarsiin doono. Waad mahadsantihiin. Safarkan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ku yimid magaalada Addis Ababa ayaa muujinaya xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood ee ku salaysan daris wanaagga iyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo horumarinta Geeska Afrika. Nasra Basheer Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Addis Ababa.